وأنا سلام ربان صاحب بدأ كحنا جنال كنا بدايات يعني ذيك ما علينا سيد ونكسنا دول ساعتان مقالة برتان صود بدأ صاحب يال ما أنتو حربا يعني عندنا وذا حقي حقيقيين وقارة فيلم كجعل يدي العاشقانة يدي العاشقانة ومثل كمان أفلام تجعل كسومالي دقات كحيسيسو وحاول الصوب بحي مركل أجو ما أنتو كلا سيدي تمام كجنال سنة دي لو كوني لبدي الدوا عندنا وذا جدون حقي حقيقيين وقارة فيلم كان برسين تنوجد المقال كي وهم كعسنا جنال كوصور بيرتو سيدو كلا مقال كتلكيش لاقي نصر في شركة ولا ذاك أصحاب هذا markaan eegno filimkan Yadi la Ashaqana waa mid kamid ah aflaamta jaceylka Soomaalidu aadka u xiiseeyo xilligii shaleemooyinkan wuxuu kamid ah aflaamtii yani nasiibku u yeeshay shaleemooyinka laga daawado waliba sanadii 2002 wuxuu kamid ah aflaamta xilligoodii yani lacagtana lagu soo qori jiray kaartada yani xilligii hore ee 98 ilaa 2000 oo kale kaartooyin waaweyn la dhigi jiray laakiin filimkan oo kale waqtigiisa wuxuu ku soo aaday kaartooyin yar oo cada la dhigi jiray lacagtana lagu soo qori jiray tusaale kun shilin Soomaali filimka marka xilligaas aad loo jeclaa in aflaamta cusub la daawado marka filimkani wuxuu kamid ah aflaamta yani xilligaasi shaleemooyin kala saaray markaan eegno waxa hogaamiyalkooda ahaa Karan Nath gabadha lagu magacaabo Javida Sharma Rajat Bedi ee Soomaalidu qaareen Garsham ama Shamidan inkastoo asigu Sham uusan ahayn walaakiis Monik Bedi ayaa Sham la dhahaa waa ninkii ku jiray Ram oo Sham filimkii ah kasoo muuqdo laakiin kan waxaa la yiraahdaa Garsham jilayaasha kale filimkan kasoo muuqdo hadii aan sii eegno waxaa kamid ah ninka lagu magacaabo Didier Banjoli Johnny Lever Soomaalida ama Dahan Mohan Azad iyo Aruna Bakshi markaan eegno filimkan waxaa director-ka ama soo saaray ama agaasimaha dhexe waxa ka ah Koku كولي نكا لقوا مقعبو sidoo kale soo saaran waxa ka Aruna Irani markaan eegno filimka waxa la saaray tiyaatar gaar ah 160 tiyaatar lacag lagu qalay jiray waa 4.25 karoor waxa uu keenay 6.22 karoor waxa uu noqday natiijo ahaan average ama film guuleysta weeyaan ama waa film guuleysta saaxiib average waa darajada ugu hooseysa ee film ku guuleysto markaan eegno filimka waxa uu noqday filimkii 32 ee lacag uu banaa soo xareeyay albumkiisana markaan eegno waxa uu galay kaalinta 12aad albumyadii ugu yani loogu gadashada badnaa sanadii 2002 ayuu noqday saaxiibayaal كوي توم فيلم أو كلية أي ألبوم كويس كألبوم كهوري أسيك كالنت لبعض أيو قال مركل أيو هي ساعة فيلم كان ألبوم كي لجسمية قد الشديسة مركل عندي أنا إجنا حقيقة كل جدي بنقلي لا يدور حقيقة يعني كإيك دونا ساحب بالحقيقة ده هريسو جلاجة فيلم كان ما أكتر كفيلم كان وجامعة كان يعني كلهم قاعد كارنا فيلم كان فيلم كيس يدحد وقصوا مغضى كور فيلم كان وقصوا مغضى أفلام دورة أما لو فيلم كجهوري أسيقوا أدو داير وقصوا مغضى فيلم كلهم عن مصر إنديا وعن الكبر سعادة سومالي حلو يعني والتقيني sidoo kale filmkiisa ugu horeeyay oo ataro ka naqdana ama asoo nin weyn oo ka soo muuqdan waa film lagu magacaabo Bagal Ban kaas oo la daawado sanadii 2001 filimkan lagu magacaabo Yadi la Ashaqana waa filmkiisa saddexaad oo ka soo muuqdo saaxiibayaal xaqiiqada labaad gabadha lagu magacaabo Javida Sharma waa atishada filmkan gabadha ku jirtay filmkan waa filmkeedii ugu horeeyay atishada ay ka naqato laakiin iyada xoogaa gabar yar oo qaangaar ama teenager ah waxay ka soo muuqatay filmka lagu magacaabo Tal waliba heestii atishada caankeed Ashuriya Rai jileysay Talimira waa gabadha dharka cad yani Ashuriya heesta la qaadayso ama kala soo muuqanayso sida hadda aad sawirka aad ka arki kartaan saaxiibayaal xaqiiqada kale ee filmkan aan kala wadaagi doono xawiyaan gabadha lagu magacaabo Juhi Barbar waa ninka lagu magacaabo ninkii birsamaadka caanka ah 90 aflaamta ka soo muuqan jiray Raj Barbar gabadhiisa Juhi Barbar ayaa markii hore loo bandhigay in atishada filmkan ka noqoto laakiin filmkan waxa ku jira door ah in atishada uu shumis ama baashi uu la wadaagayo atooraha laakiin gabadha lagu magacaabo Juhi Barbar waa ay diiday shaashada horteeda ee shumis ku sameeyso waa ay diiday filmkan waa isaga baxday booskeedan waxa lagu bedelay gabadha lagu magacaabo Javida Sharma saaxiib xaqiiqada ugu dambeysay filmkan in kala wadaagi doono waxa weeyaan waxa leeyahay filmkan inkastoo yani guul weyn uu san gaarin average noqdo hadana waxa leeyahay filmkan waxay noqdeen heesa hit ah ama heesa aad loo jecel saaxiib hadaba intaas ayaan ku soo gabagabeynaa muuqaalka yar aan kala wadaagay filmka caanka ah Yadi la Ashaqana kaas oo ay ku beegan tahay maanta waqtigii uu soo baxay 10 January sanadii 2002 ayuu soo baxay waana ku maasantahay daawashada muuqaalkeena